السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي كسو دبادة مركلية مقال عصب وانيقو عبد الرشيد عبلابي مقال كان وحانو هالي دونا امتحان كان نلشا حقيقي نلشو وامتحان وحان نقول امتحان يا قاجو حبسي إنان ويننا في مال الله سبحانه وتعالى وحودون يا إنو إيغو الإيمان كينو دبيهاي إلا إيو انتي حد أيو صبر كينو قارسيسن يهي إلا انت عن عدكيسي لينهي ama aan isdhiibi hadduu waswaas yar shaydaan xaggiisa nooga yimaado ogow imtixaan kasta oo alla xaggiisa ka ahaado waa mid qayr inoo ah in badan oo naga mid ah waxaynu ognahay in markaan iskuullada dhiganayno ay tahay inaan marno imtixaan waxaan samaynaa dadaal aad u badan si aan ugu gudubno imtixaanka iyadoo haddii aan baasnona aan faraxno haddii aan dhacno aan murugoonno waxaa kale oo aan fahansanahay in waxa nagula imtixaanayo aynaan annaga soo xulan oo ay tahay in macalinka soo xulo marka naloo keeno ma jiro arday ka dooda ee waan aqbalnaa waxaana ku dadaalnaa sidaan u shaqayn lahayn haddaba ka waran imtixaanka alle ee adduunka si la inoogu kala saaro iyadoo aan ognahay in imtixaanka nolosha ka duwan yahay kan iskuulka waxaa lagu baraa cashir kadibna waxaa lagu siiyaa imtixaan nolosha waxaa lagu siiyaa oo soo hormara imtixaanka si uu ku baro cashir imtixaanka nolosha wuxuu ku noqon karaa musiibo ama guulaysasho waxay ku xiran tahay sidaad wax ugu qabato guusha ma timaado haddaan loo dhigtoon waxaa lagu gaaraa dadaal iyo shaqo adag eebaha noo fududeeya imtixaanka adduun iyo kan aakhiro allaha naga yeelo kuwa ku sabra qadarta alle kuwa marka ay musiibo ku dhacdo yidhaahda innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay baana leh xaggiisa ayaana u noqonaynaa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa axbaabi inta aan ku kulmayna muuqaalka xiga waa anigoo cabdirashiid bilaabi oo idin leh sidaa iyo ammaano allah